halkani waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa waxaan si toos ah idiga soo gudbin doonaa warkii caalamka waxaan idin soo jeedin doonaa hadii Allah awood leeyahay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta hortagay golaha shacabka fadhiyaan caadi ahayn oo yeesheen ayaa waxa uu sheegay in doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isagoona sheegay dhanka kalena uu mahad celiyay golaha shacabka sida uu mar kale u meelmariyeen heshiiskii 17 Sebtembar wariyaha Maxamed Cabdinaasir ayaan la ayaa warkaas inoo soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta mar kale waxa uu hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo halkaas ka jeediyay khudbad dhinacyo kala duwan taabanayso oo kaga hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka gaar ahaan amniga iyo doorashooyinka waxa uu sidoo kale madaxweynaha carabka ku dhuftay rabshadihii ka dhashay muddo kororsigii baarlamaanka ay u sameeyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyn kulankaasi waxa uu ka sheegay in dib loogu noqonayo heshiiskii doorasho 17 Sebtembar isla markaana si rasmi ugu wareejiyay doorashadii amnigeeda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in amaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyaddooda loo adkeeyo dawladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado processka aan lagu mashquulin qof walba campaignkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas la isugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020 golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu hogaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxa iska leh ra'iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga ku meelmariyay dib ugu laabashada heshiiskii 17 Sebtembar waxaa natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo codaynta aan isdageysanno xildhibaanada codaynta sidaan ayay u dhacday heshiiska 17 Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay malaha xildhibaan diiday malaha waxaa ogol u codeeyay 140 xildhibaan sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 Sebtembar sidaas oo ansax ku yahay intaasi kadib madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay xildhibaanada golaha shacabka sida ay u meelmariyeen heshiiska doorashada 17 Sebtembar gudoomiye waa mahadsantahay adiga xildhibaanada sharafta leh waxaan ku faraxsanahay aan idinkaga mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo birteen kalaabka tanaasul oo aad ummadda Soomaaliyeed u tanaasulsheen haddaba si aan waqti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyay 17 Sebtembar iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirayn insha Allah Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho
madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu kulan kula qaatay wafdi ballaaran oo soo gaaray Soomaaliland kana socday dalkaasi Qatar. War-saxaafadeed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa sidan war-saxaafadeedkaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo safar shaqo ku yimid dalka Soomaaliland kana socday dalka Qatar oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Dr. Mutlaq bin Majid Al Qatnan. ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbixin dheer ka siiyay wafdiga xaaladda guud ee dalku marayo maanta iyo halkii laga soo ambaqaaday geediga dimuqraadiyadda muddada 30 sano ah. waxaanu madaxweynuhu wafdiga ka gudoomay salaan ay uga sideen madaxda dalkaasi Qatar. waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay in labada wadan ay yeeshaan xiriirka wanaagsan ee walaalnimo iyo iskaashiga wada shaqeyneed iyo dalka Qatar halka Soomaaliland uu ku yeesho xafiis diblomaasiyadeed oo rasmi ah. sidoo kale waxa war-saxaafadeedkani lagu yiri waxa laga wada hadlay sidii hay'adda Qatar u qaabilsan mucaawinooyinka ee Qatar Charity ay xafiis uga furan lahayd jamhuuriyadda Soomaaliland loona xaajoon lahaa xiriirka wada shaqeyneed oo dhinaca mucaawinooyinka ah iyo samafalka. waxaana kulankaasi ku soo dhamaaday safgarad buuxa iyo halkaasi laga sii ambaqaado xiriirka wada shaqeyneed ee labada dal ay yeesheen. allah mahad leh. xafiiska warbaahinta madaxtooyada Soomaaliland ayuu kaasi ahaa war-saxaafadeed ka soo baxay laguna sheegayay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Qatar oo soo gaaray maanta Soomaaliland madaxweynaha Soomaalilandna uu qaabilay. halkaan nagala socotaan waa Universal TV stuudiyahan ku leenahay magaalada Hargeysa imikana magaalada Nairobi. dowladda Kenya ayaa xayiraadii ka qaaday magaalada Nairobi iyadoo masaajidada ku yaala magaalada Nairobina dib loo furay. warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama Siciid Qarafaan. khudbadu maanta madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta u jeediyay shacabka dalkan wuxuuna kaga hadlay xaaladda koronaha ayuu ku khafiifiyay bandowgii adkaa ee dabayaaqadii bishii Maarso lagu soo rogay qaar ka mid ah ismaamullada ay ku jirto caasimadda dalka. ismaamullada Nairobi, Kichado, Kiambu iyo Nakuru ayaa laga qaaday xayiraadihiisa socodka waxaana sidoo kale bandowgii fiidkii bilaaban jiray laga dhigay 10 habeenimo. xayiraadda la saaray isu imaatanka bulshada ayaa sidoo kale la fasaxay iyada oo weli la raacayo oo amiirta ay dawladdu ka soo saartay arrimaha koronaha. dhanka kale waxaa la furay goobaha cibaadada oo ay ku jiraan masaajidda iyada oo arrintaas si weyn u soo dhaweeyeen bulshada muslimiinta ah maadaama la gelayo 10kii dambe ee bisha Ramadaan oo xilliga cibaadada si weyn loo soo camiro masaajidda. hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya iyada oo maanta ay ahayd maalinta shaqaalaha adduunka waxaana jira 10,000 oo qof oo Kenyaan ah oo ay saameysay bandowgan oo xilligan shaqo la'aan ah. waxbarashada dalka ayaa sidoo kale dib loo fasaxay iyada oo maalmo ka hor wasaaradda waxbarashada ee dalkan ay sheegtay in 10ka bishan May la furi doono waxbarashada dugsiyada. madaxweyne Kenyatta ayaa tilmaamay in 72% oo hoos u dhac ku yimaaday tirada kaysaska koronaha ee deegaanada xayiraadda adag lagu soo rogay. dhaqaalaha Kenya ayaa hoos u dhac xooggan ku yimaada arrinta waxaana sabab u ah cudurkan. sidoo kale waxaa jira xayiraad dhanka safarada oo dalkan uu kaga go'doomay wadamo kale oo ay ka mid yihiin wadamada Ingiriiska iyo Hindiya. xayiraadan ayaa la qaadaya iyada oo dhowr isbuuc ka hor dawladdu ay sheegtay in bandowgan aan waxba laga bedeli doonin ilaa laga gaarayo dhammaadka bishan May. Siciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi. mahadsanid Siciid. halka daawada nagala socotaan waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa warkii caalamka ayaan si toos ah idigu soo gudbinay. wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salmaan Yuusuf Cali Koore oo maanta kula hadlay warbaahinta xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay inay khiyaamo qaran ku eedeysan yihiin 4 musharax oo qaar ka mid ay xidhan yihiin qaarna lagu daba joogo. musharaxiintaasi ayaa waxay ka kala sharaxan yihiin xisbiyada mucaaradka ee UCID iyo wadani. warbixintani waxaa inoo diyaariyay wariyahayaga Mukhtaar Ismaaciil Cali. wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salmaan Yuusuf Cali Koore oo maanta magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay qaar ka mid ah musharaxiinta asxaabta mucaaradka oo ku xidhan Soomaaliland waxaanu ku eedeeyay musharaxiintaasi wasiirku inay ku kaceen khiyaamo qaran isagoo sheegayna inay xiriir la sameeyeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya. 4 xildhibaan hadda qaybo ka mid inay xidhan yihiin qaybana lagu raad joogo. waxa weeye 4 xildhibaan oo loo haysto inay ku leeyihiin
inay xidhiir la leeyihiin dowlado somalilan ka dhan ah oo aan madaxtinimadeeda iyo madax bannaanideeda iyo dastuurkeeda iyo jiritaankeeda midna aqoonsanayn. kow, cabdiraxmaan yuusuf cali. cabdiraxmaan yuusuf cali golaha deegaanka hargeysa ayuu ka sharaxan yahay, wuxuuna ka sharaxan yahay xisbiga ucid. kobra xaaji xuseen xaaji maxamuud waxay ka sharaxan tahay xisbiga wadani, golaha wakiilada ayayna u sharaxan tahay ee burco. qaasim aadan sulaymaan wuxuu ka sharaxan yahay xisbiga wadani, wuxuuna ka sharaxan yahay gobolka sool, wuxuuna u sharaxan yahay xubin golaha wakiilada. canab cabdi xirsi waxay u sharaxan tahay ucid, waxay ka sharaxan tahay xisbiga ucid, waxayna u sharaxan tahay golaha wakiilada, waxayna ka sii sharaxan tahay gobolka sool. afartaa qof ee aanu soo sheegnay waxaa loo haystaa xidhiidho dhow iyo inay waddanka reer somalilan waddan aan dastuuriyan iyo inuu jiro midna aqoonsanayn inay xidhiidh dhow la leeyihiin. wasiirka hore waxau sidoo kale eeda ka difaacay ciidamada booliska somalilan oo maalmihii u dambeeyeyna baraha bulshada lagu dhaliilayey. boorame laga soo noqday waxaa la asaasay ciidanka biliska somalilan. biliska ciidanka somalilan wuxuu soo maray waddooyin badan iyo marxalado badan, wuxuu ku shaqeeyaa duruufo adag, wuxuuna dalkan soo gaadhsiiyey marxalado badan oo adag baa biliiska somalilan ka soo saaray, isagoo marxalado adag oo badan ku shaqeeya oo aad qiyaasi kartaan xogogaalla u tihiin. ninka ciidamada iyo biliiska ataagaya wax kale uma jeedo, wax kale uma jeedo, waxa weeye kala dambayntu meeshaa ka baxdo. askarigeenna biliiska ee aad og tahay sida uu inoo ku shaqeeyo iyo heerka dhaqaalihiisu taagan yihiin iyo dhibta haysata. mukhtar ismaaciil cali, telefishinka universal, hargeysa. xisbiyada mucaaradka somalilan ee ucid iyo wadani ayaa walaac xooggan ka muujiyey doorashooyinka somalilan ee soo socda, islamarkaana la filayo inay somalilan ka qabsoomaan 31 bisha shanaad sanadkan aynu ku jirno. haddaba war-saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen xisbiyada mucaaradka ee ucid iyo wadani ayaa waxaa war-saxaafadeedkaasi u ahaa sida tan. kulan ay maanta isugu yimaadeen labada xisbi qaran ee mucaaradka ee ucid iyo wadani iyaga oo ka shidaal qaadanaya dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo sharci ahaan ay ku asaasan yihiin qodobka 9aad nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyadda somalilan waxaa saldhig u ah nabad, tala wadaag iyo dimuqraadiyad ee hanaanka xisbiyada badan. sidaasi daraaddeed xisbiyada qaranku yihiin saldhigga dowladnimo iyo hanaanka awoodda ee lagu yimaado. xisbiyada mucaaradka iyagoo og muhiimadda bulshada ay u leedahay qaran dimuqraadi ah, islamarkaana dastuurka jamhuuriyadda somalilan ku qeexaya qodobka 1aad awoodda iyo karaamada qarannimo waxaa iska leh shacbiga, taasi oo caddaynaysa in shacbigu yahay loo shaqeeyo iyo halka talada dalka ugu sarreysa. xisbiyada mucaaradku iyaga oo maanka ku haya in doorasho iyo tartan iyo xor iyo xalaal ah lagu hirgelin karo hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka yaalla, taasina ay waajibinayso inay xisbiyadu helaan fagaare loo siman yahay oo lagu tartamo iyo hay-adaha madaxa bannaan oo doorashooyinka hogaamisa. waxaa isla lafagureen arrimaha la xidhiidha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada oo ku mudaysan inay dalka ka qabsoomaan 31 bisha shanaad 2021, iyaga oo si gaar ah isu dultaagay 2 caqabadood oo kala ah: 1, hanaanka qabsoomidda doorashooyinka 3aad, tartanka loo siman yahay iyo xakamaynta habdhaqanka foosha xun bay lagu yidhi ee ciidanka booliisku kula kacayo musharaxiinta xisbiyada mucaaradka. dood dheer kadib iyo isxog waraysi iyo falanqeyn labada xisbi qaran ay yeesheen, waxa ay labada xisbi mucaarad ee ucid iyo wadani la wadaagayaan ummadda reer somalilan
saaxiibada dunida iyo cid kasta oo daneynaysa jiritaanka iyo qarannimada Somaliland in maanta warwar soo food saaray doorashooyinkii isku sidkanaa golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee mudaysnaa isla markaana uu madmadow ku gadaaman yahay sidii loo heli lahaa fagaare lagu tartamo iyo doorasho xalaal ah oo ay ka soo baxdo natiijo ay ku qancaan muwaadiniinta reer Somaliland waxaana ka mid ah caqabadaha iyo khataraha wiiqi kara hanaanka doorashooyinka kow xukuumadda oo faragelin ku haysa hanaanka doorashada iyo hay-adaha u xil saaran ee komishanka doorashooyinka oo sharcigu siinayo madax bannaani buuxda laba hay-adaha xukuumadda oo aan ixtiraamayn shuruucda dalka iyo heshiisyadii xisbiyadu galeen ee anshaxa doorashada iyo xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer lambar 19/2020 musharaxiinta xisbiyada mucaaradka oo culays iyo caburin lagu hayo isla markaana la xidhay tiro badan oo ay hadda qaar saldhigyada ku jiraan qaar kalena lagu qasbay in ay tartan ka baxaan iyaga oo loo geystay jirdil iyo handadaad ku khasabtay in ay tanaasulaan hankoodii musharaxnimo iyaga oo xabsiga ku jira afar taliyaha ciidanka booliiska oo weerar joogto ah ku haya xarumaha xisbiyada mucaaradka handadaad iyo xadgudubyo kula kaca mas-uuliyiinta xisbiyada isla markaana caadaystay hanjabaad iyo xadhigga sharci darro ah oo muwaadiniinta uu ku dhaqan jamhuuriyadda Somaliland isaga oo u muuqda in uu ku shaqaynayo cadaadis iyo muquunin xisbiyada mucaaradka isla markaana uu ciidamada nabadgelyada u abaabulay qaab siyaasadeed oo ugu adeegayo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye isagoo taageerayaasha mucaaradka iyo shicibka Somaliland ula dhaqmaya hab xukun military iyo cadaawad ku dheehan tahay una muuqda mid ka aradan aqoonta shuruudda booliska iyo ixtiraamka bulshada rayidka taliyaha boolisku waxa uu si bareera iyo mid indhala'aana ugu tuntay xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta kaasina waxaa war-saxaafadeed ay soo saareen labada xisbi mucaarad ee ucid iyo wadani oo maanta kulan ka yeeshay arrimaha doorashooyinka Somaliland iminkana magaalada Muqdisho hay-adda Barrio Foundation ayaa maanta 100 qoys oo dan yara gaarsiisay raashin ay ku afuraan maadaama uu lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan mar kale wariyahayaga Maxamed Cabdinaasir ayaa warkaasi noo soo diray ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta hay-adda Barrio Foundation waxay gaarsiisay deeq raashin oo iskugu jira bur, bariis, sokor, saliid, cabitaan iyo timir kuwa oo loogu talagalay inay ku afuraan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda Barrio Foundation Cumar Cabdi Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka Samafale Axmed Cali iyagoo ka warbixiyay deeqda gargaarka ay maanta gaarsiiyeen 100 qoys ee dantayda ku sugan magaalada Muqdisho. Anigoo ku hadlayo magaca Cumar Cabdi Maxamed oo gudoomiyaha hay'adda Barrio Foundation koo waxaan u mahadcelinaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maanta noo suurtageliyay inaan deeq raashin in ka badan oo 100 qoys aan gaarsino. deeq raashin waxaa ku kooban yahay bur, saliid, sokor, bariis iyo timber. walaalahey oo shacabka Soomaaliyeed oo lacag soo dhiibteen Ilaahay khayr ajaxsanaad ni siiyo. hay'adda Barrio Foundation mar walba danyarta garabkooda taagan yihiin. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo dadkan masaakiinta sanad walba 4 sano aan wadnay barnaamijkan oo ka soo qayb qaadanayeen waxaan leeyahay Ilaahay ajir xasanaad in ka siiyo. waxaa kaloo u mahadcelinayaa walaalkay Cumar Barrio oo si sharaf leh hawshan noogu soo agaasimay iyo dhammaan dhalinyarada quruxda badan oo meeshan joogto oo maalin walba iyo mar walba nala shaqeeyo waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waxaan deeq raashin ugu deeqeynaa 100 qoys waa 10kii waxaa hadda la gelayaa 10kii ugu dambeeyay oo bishii Ramadaan bishaan barakeysan dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galeen barnaamijka waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. haddaan nahay Barrio Foundation kulligiin waa idin mahadcelinay si mar walba idin mahadcelinaynaa. saa u ogtiin dadka dalka marxalada adag ku jira dad badan baa dhibaataysan kulligood ma wada gaari karno waxaan u rajeynayaa inuu Ilaahay dhibaatada iyagana ka wada qaado.
gabagabadii waxaa deeqdaasi gargaarka ah ka mahad celiyay qaar ka mid a qoysaskii ka faa'iidaystay iyagoo sheegay inay u mahad celinayaan hay-adda Bahriyo Foundation. wixii oo walaalaha nooga soo tiragaleen wayna soo gaaray alxamdulilah alshukrulilah ilaaha mahad leh meel kasta ay joogaan ninkii walaal oo noo kaalmeeyay alxamdulilah maanta aad iyo aad aan faraxsanahay waa kana afurkeena waa haysanaa walaalihii oo ayagana noo soo abaabulin ayagana waxaan leenahay waa maxsantihiin aad iyo aad boqolkiiba boqol maasha Allah weligood waana taageerayna adana taageerta taarka si fiican amaantana siiyaan Bahriyo Foundation waay weligiis inta ma qasaan waay maanta le ma ahan maasha Allah soon kasta iid kasta maasha Allah walaalaha dibidaha ku nool dal iid mid meel ay joogaan wayna kaalmeeyaan soon hadii la gaaro Bahriyo Foundation marwal raashin kala soo gaarsiis waay halaa waana qaadana maasha Allah khayr Allah siiyo waa kuma haysiin umr dheer caafimaad qab Allah siiyo intina soo gaarsiis magaala Soomaaliya waxaan wadanaa cabitaan bur bariis sokor iyo saliid maasha Allah khayr Allah siiyo Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho mahadsan guddiga gacanta ku haysa masjidka Cali Mubaarak ayaa waxa ay bulshada muslimiinta ay ka codsadeen inay soo caawiyaan masaajidkaasi oo hadda dhismihiisu gabagaba ku dhow yahay mar kale wariyahayga Mukhtaar Ismaaciil ayaa inoo haya warkan masaajidka Cali Mubaarak oo ku yaala degmada Gacalibaax gaar ahaan xaafadda Daami oo dhismihiisu socday muddooyinkii u dambeeyay ayaa guddiga gacanta ku haysa masaajidkaasi iyo guddiga xaafaddaasi oo warbaahintaasi wada jir ugu hadlay afaafka hore masaajidkaasi waxay bulshada Soomaaliyeed ee muxsiniinta ugu baaqeen in laga qayb qaato dhameystirka masaajidkaasi oo meel fiican maraya marxaladdu soo bilowday masaajidku waxay ahayd 2005 markay ahayd ayaa masaajidkan aasaaskiisii hore la dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadii haddana dib waxa loo aasaasay 10 sano kadib in masaajidkii laga dhigo sabad iyo fooq u gudbo maanta ololihii aanu galnay iyo yaboohii hore aanu galnay wad arkaysaano quruxda ka muuqata iyo qaayaha ka muuqda ilaahay baan subxaanahu wa tacaala mar walba ugu mahadnaqaynaa masaajidkii runtii waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u baryaynaa in allaaleyntii ka qayb qaadatay in beydkan ilaahay subxaanahu wa tacaala shilinkooda kula baxay codkooda siiyey muruqooda ugu deeqay dhammaantood waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda ha dhaafo jannatul firdawsana rabbi subxaanahu wa tacaala ha geliyo hadda ilaahay baa subxaanahu wa tacaala lagu mahadnaqaa heerka maanta uu marayo waxaana soo gaarsiiyey bacdallaahi dadka walaalaheena muslimiinta ee Soomaaliyeed markii waxa weeyaan Ramadaantii aan u bandhignay iyadoo marka laba kaliib oo kaliya ay marka arkeen dad badanna ay isweydiinayaan war masaajidkii maxaa dhacay oo waxa weeyaan masaajidkii warkiisii xagu ku dambeeyay taas keentay marka maanta inaan keenno warbixin aan dadkii marka u gudbino waxa sababay in inta aan maqnaano oo marka aad narki weydaan yani xaaladihii marka dhacay cawaaqibta ahayd ka mid tahay Allahu musta'aan xanuunkii safmarka ahaa ee caalamka marka waxa weeyaan gebigiisa marka guud yeelay u baaqaynaa dadka deeqda bixiya iyo dadka gargaarka iyo xasanaadka u ordaya maadaama maanta aad aragtaan masaajidka halku marayo inaad wixii karaankiina qof kasta awoodi karo uu ku soo gargaaro anagu kullay oday ahaan iyo gudi ahaan waxaan u taaganahay halkan inaan ku guwaabino dadkii horeba daan u guwaabin jirnay ee muslimiinta ahaa in ay masaajidkii halku maanta marayo iyo halkii aan ka qaadnay waxa u dhaxeeya farq weyn in maanta intaa hadhay ee uu sheekhu ka dhawaajiyey la soo dhammaystiro Mukhtaar Ismaaciil Ali Telefishinka Universal Hargeysa mahadsanid Mukhtaar Ismaaciil Ali daawadayaal warkaasi iyo qodobkaasi ayaa guniya gabagaba waxa warkii TV-ga Universal oo aan si toos ah idiga soo gudbinay xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idin soo jeedinaya anigoo Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen aniga asxaabtii kala duwan igala qayb qaadatay soo jeedinta warka dhamaantay waxaan idiga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Ramadaan kariim